kulan wacan wanaagsan khiyaarta hawada nagala socota email walba aad joogtaan iyo si walba aad maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka haynoon halkan idinku soo gudbin doono hadii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorona waxa kamid ah dagaaladii ka socday dalka Itoobiya iyo goobihii ay ku dambeeyeen ayaan warkeena ku eegi doonaa waxa sidoo kale warkeena ku maqlay doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ka hadlay biyo xidheenka weyn ee muranka dhaliyay ee Itoobiya sanadihii ugu dambeeyay ay sameysanaysay waa wabiga Niile qodobo dhowr ah oo uu sheegay in ay faa'iido u tahay dalka Masar iyo dalka Suudaan taliyaha ku-xigeenka ciidamada dalka Itoobiya oo faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u gali doonaan gobolka Tigreega duqeymo si istaba joog ah uga dhacay agagaarka magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega kilalada dalka Itoobiya oo malaayiin lacag ah ugu deeqay abaaraha dadku ay saameeyeen ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo qaabkii loo isticmaalay ee madaxweyne Cagjar uu isticmaalay ayaan warkeena sidoo kale ku eegi doonaa dadaaladii ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay xagay ku dambeeyeen maxaase u qabsoomay wada hadaladii colaada dalka Itoobiya lagu soo afjarayay waxaan sidoo kale warkeena ku eegi doonaa gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo dalka Soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal warkeena kaga bogan doontaan waxaana stuudiyaha igula sugan Maxamed Wacane oo ka faalooda xaaladaha geeska Afrika waxaana ku soo dhawow waan ogeyn dalka Itoobiya dagaal inay ka socdeen xaaladiisu inay qasnayd xiisado badan oo maaragtay kooxaha xoreymaha maaragtay deegaamada ay wadeen baa jiray sida xoreynta Oromiya oo kale jabhada xoreynta Oromiya oo kale jabhada kale ayadana jabhada Fano oo ayagana soo bandhigahayeen ciidamada badan oo tababara ay u soo xireen adoo xaaladda dalka Itoobiya noo soo kormeeraya oo maartay noo soo koobaya aad baad maasantay Santiago maalmihii ugu dambeysayba dalka Itoobiya waxa ka socdo qabanqaabooyin kala duwan kuwaasi oo dadka reer Itoobiya u kala sarifteen yani wajiyo kala duwan ururka xoreynta Oromiya waxay wadaan abaabulkii ugu xooganaa oo ay rabaan inay ku hantaan deegaanada ka maqan dhulka Oromada waa sida ayagu ay sheegeen ayagoo sheegay in ay rabaan inay dagaal ba'an la galaan ahmaarada oo ku soo xadgudbayso dhulka Oromada marka ka dambayso waa sida hadalka u dhigeen sidoo kale waxaa jira ayagana abaabul weyn oo xoogan oo ay wadaan ururka Fano oo ka biyadiidsan qaabka uu u maareeyay wada hadalada dalka Itoobiya ka bilaaban doono isbuucyadan soo socda maamulka Abiy Ahmed waxayna ka biyadiidsan yihiin bataatanba in ururada kala duwan ee dalka Itoobiya ka dagaalamo in aan la siinin wax mudnaana kuwaasi oo Abiy Ahmed maamulkiisa ay ku howlan yihiin inay wada hadal la sameeyaan ururka xoreynta Oromiya iyo sidoo kale ururka la magac baxay Tigreega وهاجاك محمد ورئيس الوزراء dalka Itoobiya oo ka hadlay biyo xidheenka weyn ee dalka Itoobiya ayaa wuxuu sheegay in faa'iidooyin badan ay u leeyihiin biyo xidheenkan dalka Masar iyo Suudaan oo khilaaf weyn hadda dalka Itoobiya uu kala dhaxeeyo maxay tahay faa'iidooyinkaasi faa'iidooyinkani hadda laga sugay biyo xidheenkani waxa weeyo biyo xidheenku horta wuxuu ku shaqeyn doonaa yani korontada dalka Itoobiya iyo dhammaan geeska Afrika ama bariga Afrika hatta kale iyo bariga yaan dhihina hatta centralka inay korontadani ay gaadha ayaa lagu wadaa ilaa iyo northka hatta kale inay gaari doonto korontadan oo Itoobiya ma ahe ay Afrika halfkeed ay ka faa'iideysan doonto ayaa lagu wadaa ra'iisul wasaaruhu asoo ka hadlayo arintan Masar iyo Suudaan mar walba ay sheeganayaan leeyihiin yani Itoobiya ayaa biyihii dhameysatay ama biyihii meel ku shubatay biyihii waxa weeye wasakh baa lagu soo deynaya hawlo badan ay ka hadlayeen labadan dal maalmihii ugu dambeysana waxay arkeen Itoobiya inay nugushahay oo Itoobiya waxa yani inaysan ciidan power la haysanin waxa banaanka soo dhigay ama shaaca ka qaaday dagaaladii ay la gareen ururka TPLF sidaas darteed waxay bilaabeen wadamadan dansi xoogan oo ay rabaan inay ku qaadaan Itoobiya ama ay uga faa'iideystaan inta ay dagaalada hadda ay ku jirto ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay faa'iidada laga helayo biyo xidheenkani ma aha faa'iido Itoobiya bas hadan u yahay waxa weeyo mid Suudaan iyo sidoo kale wadanka Masar ay ka faa'iideysan doonaan ama midhaheeda ay heli doonaan
si markii loo eegana waa run arrinkaasi korontadani hadda si aad ogtahayba wadanka Uganda waxa wadamo badan ayuu siiyaa korontadaasi oo laga dhaliyay lagtan weyn ee Kenya iyo sidoo kale ay wadaagaan Uganda korontada marka South Africa laftirkeeda wadamo badan baa yaa siiya ayada waxa siiya wadanka Botswana ayaa siisa ayadana korontada marka wadamo marka waxa isleedahay Masar iyo Sudan way ka faa'iideysan doonaan oo korontadan faa'iidadeeda ayaa gaari doona faa'iidada korontadan Ethiopia ka dhalan doonto way ka faa'iideysan doonaan hadii yani ay dhinaca positive ka wanaagsan loo eego laakiin hadda waxaad aragtaa wadamadani inay rabaan dandaansi weyn oo rabaan in lagu joojiyo faa'iidada dambe Ethiopia ay ka heldon malasdhihi kara Maxamed Ra'iisul Wasaaraha culaysyo xagga caalamka kaga iimaanaya ayuu iskaga dajinaya arintaasi arintani khasab dabcan waadoogeed madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in yani markii uu xilka hayay in Masar ay waxun sameeyaan sababtoo ah wuxuu ka soo horjeeday maamulka Abiy Ahmed qaabka ay wax u wadaan iyo sidoo kale korontadani biyo xireenkan wajigii labaad la buuxiyay kii saddexaad lagu socdo asoo ka hadlay ayuu sheegay in ay Masar iyo Sudan waxun ay sameeyaan arintaasi waxa loo sariftay in uu ka wada yani waa inay dagaal ku qaadaan dalka Ethiopia oo ayna joojiyaan biyo xireenkani marka biyo xireenkani waxyaabo badan ayuu وهاجاك محمد وطيب كان ويرتي كحجانك عندما ذلك إثيوبيا أيها ففاهين كبحيي أو شيء قابك أي أجري دونان ذلك دجان كتكرجة طبعا دجان كتكرجة أنا هذا ولي وحكى سعودة دقيمة استبجوج يا سيدو كلا تكسر هذا ناس كوبيا رزل تلي كحجانكو وحوش شيء إن أي فضد هاي جلتان كدجان كتكرجة طبعا نمنكي سنة كلا يصير فدي يقدر لسكو هاي حسوق بان جيستينا وحيكون حدك تكريغا اي لليهين ديغا حمارada iyo canfarta sidee lagu gali karaa bay kula tahay horta Cabdullaahi arintaasi aan taaka dhaxgalon ka saxay xooga TPLF ayagu mar walba waxay sheegeen inay iska caabin ay sameeyeen oo aysan ayagu rabeen inay dhul boob iyo qabsi aysan rabin waan ogeyd markii hadda loo eego xaalada dalka Ethiopia Tigray waa la xasuuqay caasimada loogu tagay oo caasimada wakiil ciidamada dalka Ethiopia ay galeen wakiil la kufsanaya dumarka wakiil hantidii dhannayd ee Tigray wadanka gobolka taalay wakiil ay ciidamada Ethiopia ay waxay gubaan iyo waxay agta mariyaan ay ka dhigeen horta xasuuqa halkaas ayuu ka dhacay xasuuq markuu dhacayna nimankani way soo laabteen marka ay soo rogaal celiyeen ayagana xasuuq way geysteen laakiin xasuuqa dawladda ayaa ku horeysay la dhigi karaa intaas markaan uga baxo arintani xooga TPLF waxaa jirto duqeymo kala joogsi aan lahayn oo maamulka Abiy Ahmed ay ka geysanayaan magaalada Maqale iyo magaalada Adwa iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee ay ku sugan yihiin dadka maatida ah ee laga xidhxidhay yani loo fasixi waayay dawadii iyo mucaawanadii ay keenayeen hay'adaha United Nations ee halkaas ay geyn lahaayeen ayay maamulka Abiy Ahmed uu yani uu ka joojiyay dadkani waa dadkii u dhamaanay dawladaanta dadkii saas ahaa ayaa la mar walba wuxuu maamulka uu ku wadaa duqeymo aan kala joogsi lahayn arintaasi waa arin baahan in la dhaleeceeyo hadii ay tahay qaab saxaafadeed iyo sidoo kale hadii tahay qaab kalaba in la dhaleeceeyo ayay mudan okay waa hagaag wacanow taliyuhu laakiin wuxuu yiri waa fudayd in la galo deegaanka Tigreega inaan gallo oo ciidamadeenu ay galaan waa taliye ku xigeenka ciidamada dalka dawladda federaalka Ethiopia wuxuu sheegay aad ayay noogu fududahay inaan Tigreega gallo oo soo baabino on mas'uuliintan shacabka xasuuqay ciidamada gaarka gooni-goosadka federalismka iyo dawladnimada ka soo horjeeda inaan soo qabano aad ayay u fududahay buu yiri ما صح باي كلها هذا الكاسي المفروض تهيئ كلها هرت صدق تهيبة أرنتني هرت دال معها إن هذا قبل كتكريج انتصال وجهن جبو يعني هو نسوق قبنا ناي وحنا صح سوقنا وعرين إسكعب تليه كحين كي أمام بتلياشة إذا مضى أغسطس سريع دلك إثيوبيا صدق تهيبة وقومية أحمر قومية أحمرنا iyo Tigreegana waxa kala dhaxayso cadaawad weyn taasi oo ka soo bilaabatay tan iyo xilligii ururkii ama xisbigii EPRDF uu qabsaday talada dalka Ethiopia sidaas darteed cadaawadani way soo socotay waxayna rabaan maanta Axmaaro inay uga faa'iideystaan talada ay dalka hayaan yani mas'uuliyadda ugu sarsareysa dalka ay hayaan hubkii dawladda gacantooda ku jiro hantidii guud ee dalka Ethiopia gacantooda ay ku jiro oo say rabaan in ugu takrifalaan ayay rabaan maanta in dadkaasi maatida ee Tigreega ee yani dhibaataysan
cunaha la qabtay in haddana lagu soo baabiyo inta hadhay dhammaan caalamku hadda uu u jeedayo indhihii ayaa warbaahinta caalamka iyo sidoo kale caalamka dhanba ururka amniga yani caalamka way arkaan dhibaatada ka socoto dalka tag waa hagaag aan aadno dhinaca deegaanka Soomaalida maxamedow bilihii ugu dambeysay dowladdeegaanka shacabka dowladdeegaanka Soomaalida waxay la daadacayeen abaarihii istabajoogaha ee saameeyay iyadoo hantidii reer guuraaga ay gacanta ka baxday lagana soo sheegay inay dadku hadda qarka u saareen inay oon u dhamaadaan halka deegaamo si hordhaca loo soo sheegay in dadku ay u geeriyoodeen qaarkood biyo la'aan iyo haraad ay u geeriyoodeen dabcan dowladdeegaanada ama kilalada dalka Itoobiya waxay ururiyeen dakhli lacago aad u fara badan oo malaayiin ah oo loogu deeqay dadkii ay abaaruhu saameeyeen sida kilalka Oromiya iyo Soomaalida dowladdeegaanka Soomaalida cagjar waxa soo gaadhay madaxweyne Musdaf Cagjare waxa soo gaadhay lacag aad u fara badan oo loogu deeqay dadkii ay dhibaatadu saameysay ama abaaruhu ay saameeyeen lacagtii xagee wax la bixiyeen ma aragno hadda xagee loo isticmaalay horta santaga saad waqtayba dalka Itoobiya wuxuu ka kooban yahay in ka badan 10 kilal iyo sidoo kale intaas oo maamul ismagaalo maamulka ugu yar oo hariinta waxay soo aruriyeen lacag ka badan 20 yani milyan oo bir bay soo aruriyeen oo ay ugu deeqeen shacabka dowladdeegaanka Soomaalida ee ku goomoon ama dhibaatadu ay ka haysato biyo la'aan iyo sidoo kale abaaro soo jiitamay ilaa iyo muddo 3 sano waa maamulka ugu yar ayaa bixiyay lacagtaas dowladda federaalka Itoobiya waxay ku deeqday intaan ognahay 200 milyan oo ay ugu talgashay biyo dhaamin iyo sidoo kale adeeg degdeg ah in lagu gaarsiiyo dadkaasi dhibaataysan qurba joogta ay warkooda iska dhaaf kilalada qaar baa jiro bixiya 100 milyan qaar ka badan bixiyeen way jiraan lacagta inta dhan markii la qiimeeyay waa lacag gaadhaysa almost 3 milyan oo bir oo lacagta dalka Itoobiya 3 bilyan lacag gaadhaysa way iga sax marka arintaasi lacagtaasi way soo gaadhay Mustafa Cagjar waxaana ognahay tuulooyinka qaar ee dowladdeegaanka Soomaalida in ay foostadii biyaha ka marayso 500 oo bir oo lacagta dalka Itoobiya halkaas waxaad ka arki kartaa inay dhibaato dadkii ay haysato waa dadka inta biyaha haysato madaxweynuhu lacagta xagee geeyay marka lacagtani waxaad moodaa in yani wajiye lagaga samaysanayo gobolada ka tirsan dalka Soomaaliya wajiye lagaga samaysanayo yani madax meel ay u socotay meel ka socota aan jirin iyo shirar ka socda caalamka oo kuwaasi oo taageero ka dalbanayo qurba joogta iyo sidoo kale yani lacagtani waxaad moodaa in madaxweynaha loo siiyay inuu ku baashaado marka wadadii waa laga leexiyay lacagtani wadadii waa laga leexiyay mana hayno ilaa iyo xilligan tan iyo intii lagu dhawaaqay in shacabkan la garab istaago hal meel oo ay ka bilaabatay biyo dhaamin rasmi ah oo ka socota dowladdeegaanka Soomaalida dowladdeegaanka Soomaalida arintani uu wado waa arin laga dhidiyo runtii qurba joogta macnaha maamulka dowladdeegaanka Soomaalida yani takrifal weyn ayaa ka muuqdo shacabkii waxaad moodaa in lacagtii loogu talagalay ama ka imaato beel caalam ama ka imaato United Nation ama ka imaato dalka Itoobiya lacagtaasi waxay gashay jaab rag leeyahay maamulka waxaan kula talinayaa arintani waxay ka qaadayaan subcad xumo wayna ku socotaa hadda wadadii subcad xumada ayayaan shacabkani oonka u dhamaanaya dhibaataysan waa in si degdeg ah ay ula gaaraan bal inta ka soo hadhay lacagii loo aruriyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadaaladii ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika uu ka waday dalka Itoobiya si loo xalliyo dagaalada ka taagan dalka Itoobiyana wali halkoodii ay ka sii socdaan wax xal ana lagama gaarin ilaa iyo hadda iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu khadka telefoonka kula xiriiray ergeyga gaarka ee midowga Afrika ayna ka wada hadleen si hordhaca in loo galo xalinta dalka Itoobiya lana kulmo mas'uuliyiinta iska soo horjeeda waa mas'uulka ugu sareeya dalka gobolka Tigreega iyo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya daawadayaal war waxaan daliyo dibadba idinka haynay waa naga inta warkan warka xiga intaan ka gaaraynana waxaan idinka tagaynaa nabadgelyo.